bismillaahi raxmaani raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal daawadayaal meel walba waa joogtaan iyo si walba muuqaalka igu idiin soo gaarayo halkaad inaga daawanaysaan waa bartaaynu youtube-ka ku leenahay ee runsheeg saaxiibayaal warbixintan waxaynu ku eegi doonaa ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble oo laga wareejiyay amniga doorashada iyo baaris ku bilaabatay isaga iyo saaxiibadiis iyo nisoo gacanta ku haysa cadeymo waaweyn oo ka dhan ah ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble saaxiibayaal warbixintaas oo faahfaahsan inta aynu guda gelin waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhan haddii aad nagu cusub tihiin like-na ay nagu dhiirigelisaan saaxiibayaal haddaynu ku bilowno ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa laga wareejiyay amniga doorashada sidoo kale waxaa soo baxaya warar sheegaya in baaris ay ku bilaabatay oo hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka shaqadeedii ay bilowday maadaama qof markaasi xasaanad haya howlna ku mashquulsan aan baaris lagu sameyn karin balse sida sharciga ah qofkaasi markii howlihiisa laga wareejiyo baaris ay ku bilaaban kardho gudoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa si rasmi ah ula wareegay maamulka amniga doorashada dalka kadib kulan uu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya dhawaan waxaa kulmay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Aadan Madoobe kulankaasi ayaa lagu soo hadal qaaday qodobo waaweyn oo ay ugu muhiimsanaayeen in amniga doorashada laga wareejiyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble in kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la sii daayo iyo sidoo kale in 32 kursi lagu soo kala doortay ceel waaqiga Garbaharey oo gobolka Gada ka tirsan la wada laalo isagoo tixgelinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo kulanka uu la qaatay Sheekh Aadan Madoobe waxa uu si dhaqso ah u dhaqan geliyay go'aankii ugu horeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya kaas oo ah in amniga doorashada laga wareejiyo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble kaas oo doorashada amnigeeda uga faa'iideystay howlo badan saaxiibayaal waxaa xusid mudan in tan iyo markii rooble loo dhiibay amniga doorashooyinka gaboodfallo waaweyn ay ka dhaceen magaalooyinka Garowe Boosaaso sidoo kale beledweyn kuwaas oo dad badan oo shacab ah ay ku leedeen mas'uuliyiinna ay ku baabi'een iyadoo ilaa hadda mas'uuliyiintii falkaasi geysay ay rooble dhinaciisa taagan yihiin sidoo kale isagoo tixgelinaya amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Sheekh Aadan Madoobe ayaa la rajeynayaa inuu sii daayo kursiga Fahad Yaasiin Xaaji Daahir laalana 16 kursi ee ceel waaq lagu soo doortay kuwaas oo ah sirdoon u shaqeeya dalka Kenya sidoo kalena 16 kale ee kursi ee laga soo doortay magaalada Garbaharey iyagana dib loo dhigi doono doorashadooda saaxiibayaal Sheekh Aadan Madoobe ayaa kulan isugu yeeray dhammaan saraakiisha ugu sareysay ciidamada qalabka sida kuwa uu ula yeeshay shir diiradda lagu saarayay xaaladda amniga doorashada dalka tani waxay muujinaysaa in ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble shaqadiisii ay halkaasi ku ekaatay balse wararaan helayna ayaa tilmaamaya in hadda baaris lagu bilaabay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble iyo saaxiibadiis kuwaas oo lagu eedeeyay ku takrifal awoodeed sidoo kalena dhaca hantida ummadda Soomaaliyeed muddadii uu ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble uu joogay xukunka waxaa culeysyo badan ay soo wajaheen dadka shacabka kuwaas oo guryahooda la biliqaysanayo iyadoo hanti badan la dhacay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa hadda waxay gacanta ku haysaa faylal ay ku jiraan dacwad laga gudbiyay ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble balse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ku sameeyay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Yaasiin Faray waxa uu sheegay in uusan hadda bilaabin howlo liddi ku ah doorashada maadaama hadda rooble ku mashquulsan yahay doorashada howlaheeda balse marka ay doorashadu ka soo wareegtay dhinaciisa amniga doorashadana lagu wareejiyo markaas gudoomiyaha la doorto lagu bilaabo baaris ka dhan ah waxyaabihii uu ka geystay gudaha dalka waxa ugu horeeya oo sida wararku ay tilmaamayaan dacwad ka gudbiyay taliyaha ciidamada badda kaasoo ku aadan dhul ciidamada badda ay leeyihiin oo rooble rabay inuu guri raaxa kaga dhisto halkaasi balse ay ka soo horjeesteen taliyaasha ciidamada kuwaas oo ka horyimid in la dhaco hantida ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed saaxiibayaal saraakiisha ciidamada ayuu ku amray in ay isaga ka amar qaataan oo ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble waqtigiisii soo dhamaaday gudoomiyaha golaha shacabka ayaa hadda
waxa uu janjeeraa dhinaca villa Soomaaliya iyo nabad iyo nolol. waxaa hadda culays badan wajahaya ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxa uu dhawaan isku dayay inuu isu soo sharxo balse culaysyo badan oo kaga yimid Imaaraadka iyo sidoo kale Kenya ayaa waxay kalifeen in uu sheegay in uusan diyaar u ahayn in uu hadda galo balse uu marmarsiya kaga dhigay in uu tanaasulay ummadda Soomaaliyeed. taa beddelkeeda waxa uu dhacay hantidii ummadda Soomaaliyeed culaysyo badan oo ummadda uu ku hayayna hadda waxaa la rajeynayaa in hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay la soo wadaagto bulshada Soomaaliyeed gaboodfalladii uu geystay ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. dalka haya hadda waxa uu marayaa marxaladii ugu dambeysay oo doorashada taasi oo ku saabsan midda madaxweynaha kaliya oo la doorto inuu dalku yeelanayo dowlad cusub. waxaa la rajeynayaa in maalmaha soo socda lagu dhawaaqo in madaxweyne cusub uu dalku yeeshay waliba bishan gudaheeda sida la rajeynayo. Rooble iyo kooxdiisa hadda waxaa sugaya baaritaan culus oo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ay ku bilaabayso taasoo markii cadeymo ku filan ay hesho looga yeeri doono maxkamadda sare ee dalka taasoo qaadi doonta dacwadda ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble iyo saaxiibadiisa kale ah wasiirka waxbarashada, wasiirka gaashaandhigga iyo sidoo kale wasiirka amniga kuwaasoo dhammaantood caadaysay inay dhacaan hantida shacabka Soomaaliyeed saaxiibna ku noqday. waxaase meesha ka maqnay ninka lagu magacaabo Al Cabdaala kaasoo ummadda Soomaaliyeed godob ka galay. waxaa hadda cadin saraakiisha ciidamada ay ka amar qaadan doonaan gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka iyo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa soo gabagaboobay waayihii ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble waxa uu hadda isku dayayaa in uu macaashkiisa bangiyo dibadda ah ku shubto balse waxaa hadda hortaagan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo dhawaan soo saaray warqad oo kaga hortagaya ku takrifalka awoodda. sidoo kale gudoomiyaha golaha shacabka ee cusub ayaa asna u diyaar ah inuu ilaaliyo hantida qaranka ummadda Soomaaliyeed maadaama oo hormuud u yahay dowladda cusub ee hadda la filayo in ay dalka ka dhisanto. ma ahan markii ugu horeysay ee ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble lagu soo eedeeyo inuu dhacay hantida ummadda Soomaaliyeed balse waxay ahayd caadadiisa inuu ka faa'iideysto waqtiga marxaladda adag ee dalkeena uu ku jiray balse taariikhda ummadda Soomaaliyeed waa ay xusi doontaa Rooble iyo saaxiibadiis. waag saaxiibayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa warkii aad ka daawanayseen Runsheeg TV. fadlan haddii aad nagu cusub tihiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like na inagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii ugu dambeeyay aad u heshaan idanka leh.